amniga guud ahaan ee dalka ruushka wuxuu u muuqanayaa cabsi weyn inay soo wajahday. waxaa lagu kala cararay mid ka mid ah xarumaha laga dukaamaysto oo ku yaala magaalada St. Petersburg, magaaladii uu ku dhashay madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin. cabsida ugu weyn ee jirtana waxa ay tahay in halkaasi mar kale ay ka dhacaan weeraro kale oo la mid ah wixii ka dhacay magaalada Moscow oo caasimadda dalka ruushka ah. ciidamada ammaanka ee dalka ruushka heegan buuxa ayaa la geliyey. sidaad muuqaalka ka arkaysaanna dad badan ayaa waxay isaga baxayaan dhismaha goob laga dukaamaysto oo ku taala magaalada St. Petersburg oo dalka ruushka ah. sidoo kale ciidamada ammaanka ee dalka ruushka ayaa heegan buuxa la geliyey si ay kaga hortagaan suuragalnimada weerar kale oo ka dhaca gudaha dalkaasi. Putinna waxa uu amray ciidanku iyo sirdoonka in ay feejignaadaan. goobaha dadweynaha isugu imaanayaana sidoo kale il gaar ahaaneed loo yeesho. waxaa la howlgeliyey qaybaha kale ciidanka sida gaarka u tababaran ee loogu talagalay inay ka jawaabaan wax kasta oo soo kordha oo ka dhaca gudaha dalka ruushka. xalay magaalada ama gobolka Rostov lagu magacaabo oo dalka ruushka ka tirsanna waxaa laga fuliyey weeraradaas oo loo adeegsaday diyaarado daroonis ah. marka ruushka xaaladiisu waxay u muuqanaysaa maalmihii ugu dambeeyey in loo baqo oo xogaa cabsidi ayaa soo korodhay iyo amni darro. iyadoo sidaas ay tahay xalay waxaa lagu kala cararay garoonka diyaaradaha ee magaalada Moscow. waxaa laga shakiyey waxyaabo qarax u eg oo garoonka lagu arkay. waa la kala cararay. ciidamadii ammaanka ayaa goobta yimid. waxay yiraahdeen bal maxaa dhacay, sidee wax u jiraan, waa idinka kala cararay. kadibna lamaha kale ee amniga ayaa waxay ku wargeliyeen muwaadiniinta ku sugnayd garoonka diyaaradaha ee magaalada Moscow in waxyaabo laga shakiyo oo bam u eg oo kale lagu arkay garoonka. taasina ay keentay inay dadka ku amraan inay ka fogaadaan halkii laga shakiyey. marka taa laga yimaado waxaa si weyn loo hadal hayaa waxa ka soo kordhay dadkii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay magaalada Moscow ee dalka ruushka, gaar ahaanna howlka Crocus lagu magacaabo. gantaalkan aad arkaysaan waa gantaalada ay ridaan diyaaradaha dagaalka ee dalka ruushka. waana nooca loo yaqaano Fab 500 iyo nooca kale loo yaqaano M62S. waxaa la sheegay gantaaladan inay ka mid yihiin kuwa lagu rakibay diyaaradaha dagaalka ee ruushka ee heeganka la geliyay. gantaalka marka waxaa lagu qoray magaca goobtii weerarka uu ka dhacay oo ah hoolka ama moolka loo yaqaano Crocus oo ku yaala duleedka magaalada Moscow ee caasimadda dalka ruushka. weerarkaas in ka badan 143 ruux ayaa ku dhimatay, boqolaal kalena way ku dhaawacmeen. laakiin sheekada soo korodhay ee la hadal haya waxay tahay sida ay u ekaadeen xubnihii la tuhmay inay weerarka ka dambeeyeen ee la soo qabtay. dadkan markii la qabto horta waraysi ayaa lala yeeshay. waraysigaas marka shaki badan ayaa uu banaanka u keenay. midda koowaad waxay ahayd dadkan luqadda raashiyaanka ay ku hadlayeen waxaa la yidhi ma ahayn luqad nadiif ah oo dhammaystiran. xogaa jajab ayaa ku jira laga shakin karo. waana midda keentay in looga shakiyo in lagu tababaray, lagu diyaariyey, dhaqaalaha lagu siiyey gudaha dalka Ukraine. inkastoo badankood sidaan arki doonno ay u dhasheen Tajikistan, haddana sida jugta loogu hayo dadkan waxa kuu muuqanaya waxay tahay in dadkan la buusbuusay wejigoodii oo dhanna sidaan laga dhigay. waa 4 ruux oo dhalinyaro ah oo la soo qabtay markii weerarka uu dhacay. xitaa qaarkood intii lagu daba jiray ayaa la sheegay inay dhinteen. macluumaadyada kale ee soo baxayna waxay sheegayaan in dadka la tuhmayo wadartigu dadka la qabtay 11 ay gaarayaan, laakiin 4 ruux ayaa si gaar ahaaneed baaritaan rasmi ah loogu sameeyay. maxaa yeelay qaarkood waxaa la yiri waxay ka mid ahaayeen dadkii toogashada fulinayay. wejigoodii sidan ayaa loo ekeysiiyey oo laamaha amniga xitaa sawiradooda iyo muuqaaladooda iyo markay maxkamadda la keenayo sidaan arki doono iyagoo dhiigayaa la keenay. ka muuqato jugta loo geystay intay la eg tahay. sidoo kale saraakiisha amniga waxay soo bandhigeen muuqaalada muujinaya xubnaha la tuhmay iyagoo wejiga uu ka xiran yahay gaarbaduub u xiran. ciidamadana weliba awood u sii adeegsanayaan. markii la soo bandhigay xitaa si tartiiba looma kaxaynaynin. waxaad muddaa in cara ay ka muuqatay ciidanka kaxaynaya xubnaha la soo bandhigay. xitaa iyagoo indhaha ka xiran marka looma naxariisanaynin. maanta marka waxaa dhacday mid ka mid a xubnihii la tuhmay ayaa maxkamadda la keenay. laakiin maxkamad ha la keena ma xumo waxaa muuqanaysay in daal badan uu ka muuqdo,
indhaha xataa inuu kala qaaday ku adag tahay, dharka uu xiran yahay muujinayo sida ay ciidamada ruushka baaritaan ugu sameynaya, yacni jirdil xoogan ayaa ka muuqanaya ninkan. intaas oo kale sheekada kuma eke, madaxa ku-xigeenka golaha amniga ee dowladda ruushka Dmitry Medvedev warbaahinta ayuu la hadlay maalintii shalay. wuxuu yidhi waan dabagelaynaa, waxaana dabagal ku samaynaynaa kuwii ka dambeeyey xasuuqii hoolka riwaayadaha meel kasta oo ay joogaan, cid kasta oo ay yihiin iyo meel kasta oo ay nala galaanba. sidaani oo kale madaxweyne Putin ayaa hanjabaad sidaan oo kale jeediyey maalin ka hor markii weerarka uu dhacay. marka wuxuu yidhi waan u aargudi doonaa qof walba oo ka mid ah kuwii ku dhintay kuna dhaawacmay weerarkii ka dhacay Crocus. sheekada inta haddii ay ku ekaan lahayd waxba ma dhibteen. marka sawirkan ayaa la soo geliyey baraha bulshada. marka sawirkan waxaa la yidhi waa mid ka mid a dadkii weerarka ka dambeeyey. banaanka meel ayaa sida muuqataba lasoo dhigay. marka waxaa la yidhi xaniinyaha koronto looga dhajiyey, iyo amarkaana waxaa bixiyey baa la yidhi madaxweynaha iyo sidoo kale saraakiisha amniga ee dowladda ruushka. marka waxaa la yidhi si kastood xog uga keeni kartaan xubnaan xog inooga keena, xog ayaan uga baahannahay. waa sawirka loogu hadalhaynta badan yahay 24kii saac lasoo dhaafay baraha bulshada. marka waa sheeko aad u adag. afarta ruux ee lasoo bandhigay, Shamsuddin Faraduni nin lagu magacaabo ayaa ka mid ah, waa 24 sano jir. waxaa la sheegay Tajikistan inuu ku dhashay, waxaana uu dalka ruushka uu joogay isagoo warshad ka shaqaynayay. ruuxa labaad Mohammad Sobir Faizov ayaa magaciisa lagu sheegay. waxaa la yidhi wuxuu ka shaqaynayay qaybaha nadaafadda timaha iyo yacni daryeelka timaha ee dalka ruushka. nin kaloo magaciisa lagu sheegay Saydakrom oo 28 sano jir ah, waxaa la sheegay inuu Tajikistan uu ku dhashay, laakiin magaalada Moscow uu ku noolaa. xogtiisa oo kale iyo waxay Moscow uu ka qabanayeen lama soo bandhigin. ruuxa afraad ee ugu dambeeya Mirzov ayaa magaciisa lagu sheegay. isaga waxaa la yidhi Tajikistan ayaa uu ka yimid oo uu soo dhex maray. fiisaha uu ku yimid xataa waaba laga shaksan yahay, baaritaan kale ayaaba lagu sii sameeyey oo sharci darro ayaa lagu warramayaa inuu ku joogay gudaha dalkaasi ruushka. marka waxaa soo baxaya macluumaadyo ku saabsan marka in xubnahan baaritaano kale oo dheeraada lagu sameeyey. wadamo badan oo qaaradda Yurub ka tirsan hadda cabsi weyn ayaa ka jirta. muuqaalkan ama sawirada idiin muuqanayana waa xubnaha sida gaarka u tababaran ciidamada Akhmad loo yaqaano, kuwaasoo la yidhi waxay ahaayeen kuwii soo qabtay dadkii ka dambeeyay weerarka. marka xaaladdu ma sahlana. ruushka amnigiisa waxaad muddaa maalmihii ugu dambeeyey inay wax un ay ku soo kordheen. baaritaano ayaa soconaya. fadlan Soomaalida joogta dalka ruushka waan ognahay kuwo badan ayaa jooga is ilaaliya, si gaar ahneed kuwa ku sugan magaalada Moscow oo caasimada dalka ruushka ah. Faransiiska sidaasi oo kale cabsi weyn ayaa ka jirta oo waxaa laga baqayaa weerar kuwan la mid ah inay ka dhacaan dalka Faransiiska. guud ahaan qaaradda Yurubna dhegaha ayaa u taagan.